توكسي وحرام وما بنانا قفك إنه وح توكسده إلا إن الدنيا كلفته سدحوا النبي صلى الله عليه وسلم Soomaalidan araga kuwa dhahay meel heblan ka imid u leeyahay saayuu ka cayay meel heblan macalinka ahaa jiray ama saasaan ahaa jiray dugsiga iga burburay oo xaalad saas ay ugu dhacday 10 qorsho soo dagay maalin kadib ama maalmo kadib hadana waxa kula tukanaya masaajid kale hawshii hor hawlan ahayn hadana sheegay waa isla nin bal qaarkood waxa arkaysaa ayagoo kabarada jaadka fadhiyo qayiilaya markay masaajidka soo tuugsadaan kadib markuu masaajidka imaanayna qamiis soo qaadanaya cimaamadu soo xiranaya markuu furfuranaya in alxamdulillah iyo aayaadi xoogaa waxbu akhrinaya dadka uu rabo inuu iskaga dhigo inuu wadaadiyo lacagta uu raadinayna waa lacag uu rabo inuu ku qayilo jaadku mas'alada qofku haday mar baratana soo uga go'aa waadagta tuugsi xaraam wax uma banaana qofka inuu wax tuugsado illa inay dani ku kallifto sadaxu nabigu soo reebay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inal mas'alata la tahillu illa li ahadin thalath su'aasha iyo wax weydiisigu xalaal uma ahan buu yiri illa saddex midkood mooya ninka koowaad wuxuu ahaa rajulun tahammala hamala waa nin deemoobay deeyma ayaa dushiisa saaran arrimo badan iyo masaalix fara badan oo ku furnaa buu u deemay ninkaasi waxa loo ogol yahay inuu cidi marka uu isleeyahay waxbaad ka heli kartaa wax weydiisto ila alla deentiisa ka gudaya subhanahu wa ta'ala kadibna waa ka haysanay ninka labaad waa nin hantidiisa maalkiisa ay jaa'ixa ku dhacday musiibo caam beer uu lahaa markaas musiibo ku timid waa baaba'day hantidiisa hal mar wada baaba'do waa gubatay waa ceero yani wax hantiya ma hayso faqiirun kaasina waa loo ogol yahay ilaa uu helo wax uu baahidiisa ku daboolo cid waxa ku jirtay baahidiisa wuxuu ku daboolo bimaana gaajada marka ay hayso wuxuu iskaga fujiyo inta wax ka badan looma ogol ninka saddexaad waa nin baa gaaja ku dhagan soo daruuro iyo xaaja ma gaajadii iyo baahidii ku dhaganeed awgeed ayuu qofkii wax weydiistay way banaan tahay ilaa uu baahidiisa daboolo ama gaajada ay hayso wuxuu iskaga fujiyo oo helo wixii ka dheeraada waa ka xaraam wuxuu nabi kaleey salaatu wasalaam wixii saddexda ka soo hara suxti waayo xaraam ninka cunaayana nin xaraam cunaayo ida waxaan leenahay al aslu fi mas'alati at-tasawwul wa xaraam tuugsigu xaraam laakiin saddexdan maxaa loo soo reebay lil haajati wad daruura saddexdan xaaja iyo daruura loo soo reebay way la asalku xaraam tuugsiga iyo dadka in loo gacan hoorsado wax fiican ma al yadu al ulya khayrun min al yadi as-sufla gacantaadu mar walba inay tahay mid sarreysa ina ku dadaasho ayaa ku khayr badan adduunyo aakhiraba laakiin gacantaada aysan noqon mid hooseysa tasawulka marka asalkiisu xaraam dadka wax weydiista ama tuugsada waxaad ogaataan tuugsigu baahi kaliya ma mararka qaar balwadu dadka qaar asoon baahnayn ayuu dadka tuugsanay waxaad arkaysaa qofkan inuu hanti leeyahay ama xoolo leeyahay ama wuxuu ku dhaqmi karo ku noolaado haysta hadana tuugsiga laga ma celi karo dadka wax weydiisanaya mar walba wuxuu rabaa in tuugsi uu ku noolaado cunada u dhadhamayso ugu macaanba mid uu soo tuugsado laakiin wax kale oo meel kale ka soo gala ma u dhadhamaya balwadaasi qofka mar haday gasho waa musiibo daawo male baahi kaliya ma hadda ka hor waxa la nin baa nin dilay markuu dilaa eheladii ninkii la dilay ka dhashay ayaa waxay yiraahdeen wala qisaastu waa adagta dabcan xeerka markaas hiilana waxay ahayd qofkii qof dila waa sharci ilaahay subhanahu wa ta'ala laakiin wixii marka lagu ballamano waxay qofkii qof dilay in la dilo oo sharciga lagu fuliyo ninkii wax dilay dadkiisa waxay damceen oo geed gaaban iyo geed dheer u koreen siday uga badbaadin lahaayeen dilka lagu qoray ninka ama lagu xukumay waxay ka codsadeen awliyaa ul maqtuul inay cafiyaan kii la dilay dadkiisa iyo eheladiisa qoladii markii wax laga dilay markii dambe waxay shardi ka dhigeen waxay yiraahdeen waa ogolna laakiin waxaan ku cafi karnaa inuu diyadii bixiyo kow diyada uu nasiinayana waxa shardiya eheladiisa ma bixinayaan diyada asalka caaqilada bixis asaabixina shakhsigiisa maal uu asiga leeyahayna kama rabna waxaan rabnaa bay yiraahdeen diyada inuu tuugsi ku soo aruuriyo boqolkii neef geela qiimahood ha soo tuugsadeen marba masjid ha ka kaco waxay ugu tala galeen hadda asoo nool inay dilaan waa nolol ku dhim bacala masaajidda ha ka istaago ha tuugso ninka hadda labada mid soo gala leeyahay ama tuugso masaajidda tagay diyada sida ku bixi ama waa qisaas naftu waa macaantahay wuxuu doorbiday inuu tuugsado oo masaajidda uu ka kaco masaajidda uu ka tuugsaday muddo dhan uu tuugsan jiray lacagti waa u aruurtay deenti waa ka baxay yani diyadii waa baxsh laakiin markay diyada ka baxday kadib yaa ka celinaya tuugsiga waa bartay ninka kadib waxa la yiri tuugsi iskala qabsado waa laga kari waay marba masjid uu tagaaya wali wuxuu lacagta ku aruurinaya diya la iga rabaa diyadii waa hore baxday Soomaalidan araga kuwa dhahay meel heblan ka imid u leeyahay saayuu ka cayay meel heblan macalinka ahaa jiray ama saasaan ahaa jiray dugsiga iga burburay oo xaalad saas ay ugu dhacday 10 qorsho soo dagay maalin kadib ama maalmo kadib hadana waxa kula tukanaya masaajid kale hawshii hore hawlan ahayn hadana sheegay waa isla nin bal qaarkood waxa arkaysaa ayagoo kabarada jaadka fadhiyo qayiilaya markay masaajidka soo tuugsadaan kadib markuu masaajidka imaanayna qamiis soo qaadanaya cimaamadu soo xiranaya markuu furfuranaya in alxamdulillah iyo aayaadi xoogaa waxbu akhrinaya dadka uu rabo inuu iskaga dhigo inuu wadaadiyo lacagta uu raadinayna waa lacag uu rabo inuu ku qayilo jaadku mas'alada musiibo waay qofku haday mar baratana soo uga go'aa waa adagta waxa la rabaa
qof walba muslima atacafuf waa laga maarmaa waxyaabaha nabiga lala soo diray sallallahu alayhi wasallam maxaa kamid ahaa alcafa famaada ya'murukum markii lagu yiri Abu Sufyan waxyaabuhu yiri nabiga waana amra alayhi salatu wasalam waxaa kamid ahaa alcafa qofka inuu dhowrsado al-Jurjani rahimahullah abyaadiisa abyaad aad u fiican u lahaa waxa ku jirtay inuu yiri yaquluna li fi kan qibadun wa inma ra'aw rajulan an mawdi'i dhulli ahjama idha qila hadha mashrabun qultu qad ara walakinna nafs al-hurr tahtamilu dhama waxay yiraahdeen buu inqibaada kugu jira ana leeyahay macna xogaa waa xirxiran tahay dadka wax ma weydiisatid bay leeyihiin waxayna arkeen buu yiri aniga inqibaad kala malihiye nin waxay arkeen buu yiri meesha dulliga iyo ihaanada ka jirto naftiisa ka xakameynaayo yani dulliga iyo ihaanada nafteeda ka celiya buu yiri cilla kale ma jirto tusaalo u keenay cizigaas iyo sharaftaas iyo karaamadaas uu leeyahay waxa la leeyahay buu yiri idha qila hada mashrabun hadii la yiraahdo halkan biya yaala meeshan biya ku jira biyaha ka hadii la igu yiraahdo qultu waxaan iraahdaa buu yiri qad ara biyaha waa arka waa u jeeda inay meesha biya ku jiraan walakinna nafs al-hurr tahtamilu dhama laakin ninka xorta ah naftiisa oonka waa u dul qaadataa baan iraahdaa anigu nin xoran ahay oonkana waa u dul qaadanay meeshan biya kacab xataa ma yeelo waxaan leeyahay oonka waa u dul qaadanaya maadaama nin xor ah waxa ku jirtay inuu yiri waman akramatu izzatu nafsi ukrima wa ku yani qofkii naftiisa karaameeya ayaa la karaameeya meesha isdhigtaa lagu dhigaa qofku waxa la rabaa marka manzilada iyo maqaamka oo naftiisa dhigaayo dabcan qof walba wuxuu jecel yahay maqaam fiican in naftiisu taal wuxuu jecel yahay in la sharfo wuxuu jecel yahay in la ixtiraamo wuxuu jecel yahay in la karaameeyo laakiin sidee ku heli kartaa waxa ku heli kartaa inaad dhowrsato hadaadan dhowrsanin dadku way necab yihiin sideedaba wax weydiisigu dadku ma jecla ida su'ila an-nasu turaba la awshaku ida qila hatu an yamallu wa yamna'u dadku hadii ciid la weydiisto wiir shaacirkaas hadaa ciid weydiisato midalan guri hadaa timaado ama qof agtiisu bacaad yaal waa bacaadka indhaha ka galay hadaa tiraado ciidan aan wax ka qaad ee aad darsato ku ogolaa hadaa soo noqnoqoto ciid waa la macaanaysa macaani la noqonay asig marka daba waxa laga inuu yiraahdo ciidan kuma ogol mar dambe inaa qaad waa ciid hadaa uu shaqo ku lahayn oo bacaad oo meel iska dhooba insaanka sidaas hadii door mar wax la weydiiyo wuxuu ku siganayaa inuu diido xataa wuxuu hadaysan agtiisa qiimo la laakiin Allah subhanahu wa ta'ala hadaad wax weydiisato waa kugu jeclaanaya wax walbana asaa ku siin karo sooma insaan wax kuma siin karo insaan awoodiisa waa koobanta wuxuu ku heli karo waa yarta Allah subhanahu wa ta'ala hadaad wax weydiisato waxaad weydiisatana ku khasaari mayso waa ka helaysaa cibaadana way ku tahay ilaahayna waa kugu jeclaanaya subhanahu wa ta'ala was'alullaha min fadlihi